saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan isla barteena Facebook ee Cabdulla Xuseen iyo barteena YouTube-ka ee Cabdulla Deeqsi waxaan idin haynaa isla barnaamijkeena maxaa cusub kaasoon ka hadlayno Najma Nashaad iyo Cabdi Cidil oo haadan wala saaran isla faraska jacaylka kaasi oo la ogeyn meesha uu ku dambeyn doono iyo meesha uu galban doono balse intaanan muuqaalka guda gelin daawadaha iyo qiimaha badan waxaan si xushmad iyo sharaf la kaaga codsanayaa inaad fiidiyoga la gareyso sidoo kalena aad sii share gareyso barteena YouTube-ka Cabdulla Xuseen intood gacantaada yar ula tagto subscribe-ka yarka dhac ku sii adigoo mahadsan gambaleelkana furo si aad noola joogto mar kasta oo u hesho fiidiyo kasta oo soo gelino hanad oo ahaato admin saaxiib sidoo kale Facebook page-kayga waa Cabdulla Xuseen waa isla aniga idin la hadlaye follow soo dhig aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalada aan soo dhigno saaxiib waxaan maanta idin haynaa ninka caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaan barta Instagram-ka iyo TikTok Cabdi Cidil cid aan ka hadlaynay cid kale ma ahayna waa Cabdi Cidil oo ah xaaskii hore ee gabadhii Najma iyo sidoo kalena ayaan dhalad labaduba waxay ahaayeen istileesyaal qaarkood ay ka soo jeedaan qurbaha sidoo kalena qaarkoodna ay degan yihiin isla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kuwaas oo ahaa laba hablood oo labaduba Soomaali yihiin ay soo guursaday Cabdi Cidil ku dambeyntiina seefta ayuu galka kala baxay oo waa uu kala tuuray sidoo kale Najma waxay u haysay laba caruur ah balse ayaan dhalad hal canug oo caloosha ku siqiiray mooyee wax kale oo ilmo ah uma aysan dhalin ilaahay ayaa taa qadaray balse markiiba laag ayuu ku turay waqti xaadirkana fanaanadii caanka ahayd Najma Nashaad meeday sayigi Marwadi Cawaaladeer ayay wada saaran yihiin faraska jacaylka halkee ayuu ku dambeyn doonaa halkoos haadan maraya jacaylkoodu warbixintan ayaan idinku faahfaahineynaa saaxiib Najma Nashaad oo ahayd sayigi Marwadi Cawaaladeer sidoo kalena oo dhashay wiil lagu magacaabo Maftuux kaasi oo ay u bixiyeen Maftuux macnaha furihii arsaaqadii risqooda ayaa waqti xaadirkii ay kala tageen Cawaaladeerba waxay garabka iyo ganafka qabsatay isla wiilkan aan idin sheegayno ee Cabdi Cidil oo waqtigan ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaasi oo jacayl ay ka abuureen lamaanahan isla iminkana ay wada saaran yihiin isla doonta jacaylka taasi oo ka dulbabanayaan calamo kala duwan oo fiyoreya u badan calamada fiyolayga waxa soo qaaday Cabdi Cidil waxaanu kor saaray isla Najma Nashaad Najmana way ka aqbashay waxay tiri Cabdi Cidilow waxa tahay midkan in badan ku taamayay waxa tahay ayaankayga waxa tahay nasiibkayga waa ereyo badan oo ku dhawaaqday isla markii ay gacanta qabsatay Cabdi Cidil hayay arinta saaxiibada qiimaha badano ma aha mid aad ka warwari doontaan mana ahan mid asleedihiid run ma aha masawabeen waa run ahaantii waa run waxa xaqiijiyay isla isaga afkiisa ka xaqiijiyay walo aan fiidiyoga soo qaadan sidoo kale waxa iyadu xaqiijisay isla Najma waxa ay soo dhigtay soo wada aragteen barteeda gaarka ah ee Facebook sidoo kalena waxay soo dhigtay barteeda Instagram maxaa looga hinaas ragiiba waxay noqdeen hinaasiin maxaa looga hinaasan yahay wiilkan yarka ee shukaasanayo boy ruuhantii labada lamaanaba waa laba lamaan oo waxay cuni karayeen soo cunay waxay soo laasan karayeen soo laastay marka hadii ay qalad u qaataan isla ereygaas hayga raali ahaadaan balse Cabdi Cidil laba ayuu soo kala gooyay macnaha hayga laba hablood ayuu ka soo talaabsaday Najma Cawaaladeer ayay boorka ka rafatay labadaba midna lama oran karo waa Leeliyo hadda ayay wax rabaan oo markii ugu horeysay ayay guur qalayaan balse saaxiib in yar heestan aan ku wada raaxaysano هابا باي إيش على جعيل وايس جعيل كوبرتي سلردقي وأنا حتى ميل كلا لو دونين نجمع Cabdi Cidil waxaanu leenahay hambalyo isku waara noqda kuwii ubad khayr leh iyo awlad baariye kala dhala sidoo kale noqda kuwii lagu farxo ee reerkii lagu nasto ee lagu nagaado marti sharaftuna si qurux badan ha uga soo qayb gasho arooskiina
barnaamijkan waxa soo diyaariyay oo isku soo dabariday anigoo Cabdalla Xuseen Cabdalla Deeqsi oo isla codkana saaray sidoo kalena soo diyaariyay wararkan ka soo shaqeeyay saaxiibadeed qiimaha badalow waqti badan ayaa rafaadiyaan u maray waad ogtahay sidaan u caatoobay waan arkaysaa sidaan ugu dhuubnaaday sidaan barnaamij u diyaarnay ee waqtiga u galnay balse saaxiib wax dhibaato iga haysta waa subscribe-ka yarka iyo sidoo kale follow-da yar saaxiib aad baad ugu mahadsantihiin saad noo daawatan laakiin labada noo sameeya